بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام وعن habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub oo habeennimadan kugu soo gudbin doono dhacdooyinka ugu dambeeyay ee dunida iyo waxyaabaha kale ee waaweyn ee ka cusub qodobadan barnaamijkeedun kugu haynana waxaa ka mid ah maxaa ka jira in Trump uu sii huriyey muran ku saabsan mustaqbalka siyaasadeed ee Netanyahu xilli Netanyahu laftiisaba uu wajahayo kala doorashada laba wado oo aad u adag marka loo eego qaabkooda xiriirka Washington iyo Tel Aviv saameyn ma ku yeelan kartaa arrintan sideese hadalka Trump dood uga abuuray gudaha macluumaad ayaanu idinkaga haynaa arrimahan barnaamijka waxaan kolon kusoo qaadanaynaa caawa Ukraine oo si adag u beenisay jiritaanka eedeymo cusub oo horeyba Ruushku u jeediyey waxaana idiin soo gudbin doonaa warbixin ku aadan eedda Kiev loo haysto ee jawaabta ay ka bixisay dowrka Mareykanka ee xaaladan iyo qaabka arrintan ay uga falceliyeen hay-adaha caalamiga ah ee ku lugta leh barnaamijka waxaan kaloon ku eegaynaa caawa kuuriyada waqooyi oo diiday Mareykanka iyo sidoo kale Yurub baaqi ay u direen kuwaasi oo ku aadanaa ka tanaasulka hubkeeda nukliyeerka haddaba maxay Pyongyang u adkeysanaysaa siyaasashada hubkan waa maxay ujeedka xulafada saddexda ah ee tanaasul ay samayso kuuriyada waqooyi u daneynayaan maxaase hadda kasoo baxay kulankoodii ugu dambeeyay ee dalalka saddexda ah waa Japan kuuriyada koonfureed iyo weliba Mareykanka faahfaahin ku aadan xiisada nukliyeerka ee jasiiradda Kuuriya ayaan caawa sidoo kale barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa dhammaan macluumaadkan oo faahfaahsan ayaad kaga bogan doontaan barnaamijkeena caawa soo dhawaada mar kale saaxiibayaal habeen wanaagsan aynu ku bilownayo sheekada ugu horeysay caawa xukuumadda Pyongyang ayaa mar kale waxay caddeysay mowqifkeeda ku aadan hubkeeda nukliyeerka kaasi oo ay ka tanaasulkiisa xariiq cad u aragto inkastoo Mareykanka iyo sidoo kale reer Yurub iyo xulafo kale oo ka mid ah ama gobolka Aasiya qaarada Aasiya dabcan ka mid ah ay doonayaan oo aad u daneynayaan in hubkeeda nukliyeerka ay ka tanaasusho kuuriyada waqooyi ayaa gelinkii dambe ee maanta waxay sheegtay maqaamkeeda dal hub nukliyeer leh uu yahay mid aan dib looga noqon karin iyadoo diiday baaqyada Mareykanka iyo xulafadiisa ee ku aadan ka tanaasulida hubkeeda nukliyeerka Pyongyang ayaa marar badan waxay ku celisay inaysan ka tanaasuli doonin hubkeeda nukliyeerka kaasi ay aragto mid lagama maarmaan u ah cabsigelinta iyo difaaceeda Kim iyo Jong oo ah walaasha hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un ayaa horaantii bishan ku tilmaantay siyaasadaasi jid aan laga soo noqon karin marnaba bayaanka kuuriyada waqooyi ayaa yimid kadib kulan saddex geesood ah oo jimcihii ka dhacay Tokyo kaasi oo yeesheen dalalka kuuriyada koonfureed Japan iyo weliba Mareykanka oo xulafo saddex ah ka kulankaasi oo ay xulafadaasi ku xaqiijiyeen sida ay uga go'an tahay in gebi ahaanba hubka nukliyeerka looga tirtiro jasiiradda Kuuriya afhayeen aan magaciisa la shaacin oo u hadlay kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in hadallada maran ee Mareykanka iyo xulafadiisu aysan wax saameyn ku yeelan doonin maqaamka aan laga noqon karin ee dalkiisa ee ah inuu yahay quwad haysata hubka nukliyeerka ka dhigista hubka nukliyeerka mid la iska dhiibo waa arrin la go'aamiyey oo aan dib looga noqon karin ayuu yiri mas-uulkaasi afhayeenku waxa uu sidoo kale ku dooday in iibinta nidaamyada hubka ee Washington ay siiso Seoul iyo Tokyo ay sabab u tahay in Pyongyang ay kusii deganaato barnaamijkeeda nukliyeerka kaasi oo ku tilmaamay damaanad amni oo xoogan oo lagu ilaalinayo xasiloonida iyo nabadda gobolka waxaana uu hadalkiisa sii raaciyay mas-uulkani si kastaba oo Mareykanka iyo Japan iyo kuuriyada koonfureed ay isugu dayaan doodan ma bedeli karaan maqaamka hadda ee kuuriyada waqooyi oo ah dal hubka nukliyeerka leh kuuriyada waqooyi ayaana dardargelisay barnaamijkeeda nukliyeerka tan iyo markii wadahadaladii Washington ay burbureen sanadkii 2019 markaasi oo shir dhex maray Kim Jong Un iyo madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi oo Donald Trump uu hogaaminayay uu soo dhamaaday heshiis la'aan kulankaasi oo ka dhacay magaalada Hanoi afhayeenku waxa uu sidoo kale sheegay inaysan cidina dib ugu celin karin baaqa ka dhigista hubka nukliyeerka oo la baabiyo ama la iska dhiibo ee waxa uu yiri mar hore ayay waqtiyadu kana tageen arrinkaasi
dhawaadna Kim Jong Un ayaa Pyongyang waxa uu ku qaabilay madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping kadib laba shir oo xiriir ah oo uu kula yeeshay Beijing madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin. Sida ay warbaahinta rasmiga ah sheegtayna labada dhinacba midkood kama hadlin arrinta baabi'inta hubka nukliyeerka ku saabsan iyo in laga dhigo mid la iska dhiibo oo hubka ay dhigto ama ay joojiso hubkeeda nukliyeerka oo ay ka tanaasusho Kuuriyada Waqooyi. markan aynu u weecan xagga Yurub. Ukraine ayaa waxba kama jiraan waxay ku tilmaamtay eed hore ay khubaro Ruushiyaan u jeediyeen taasi oo la xiriirtay samaysashada hub aad u khatar badan dunidana badda laga mamnuucay. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa si cad waxay u beenisay eedeymaha la xiriira in Kiev ay horumarinayso soo saarista hubka biolojiga ah oo dib loo isticmaalo hubkaasi oo loo isticmaalo noolayaal ama walxo cudurro keena si loogu waxyeeleeyo ama loo dilo dadka xoolaha ama dhirta iyadoo sheegtay in Kiev aysan weligeed ku lug yeelan horumarinta dilaaga noocaasi ah soo saaristiisa ama wakiilinta hubkaasi. hubkan ayaa waxa uu kaga duwan yahay kuwa kale ee caadiga ah inuusan wax ku dilin qarax ama rasaas burburna uusan u geysan deegaanka balse taa beddelkeeda uu ku faafiyo cudurro dhammaan hawada dalka marka lagu sii daayo. sababtan aawadeedna dalalka dunida badankood waxay mamnuuceen samayntiisa iyo isticmaalistiisa iyadoo loo marayo heshiis la gaaray sanadii 1972 iyadoo haatan dalalka ku jira jumciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay wada saxiixeen. bayaan qoraal ah oo wasaaraddu ay ku baahisay baraha bulshada ayaa lagu sheegay in wada shaqaynta Ukraine iyo Mareykanka ee dhinaca badqabka biolojiga oo diiradda saaray kaliya xoojinta caafimaadka bulshada, la socodka cudurrada faafa, baaritaanada shaybaarada iyo sugidda amniga cilmiga biolojiga ee caafimaadka la xiriira balse aysan wax xiriir la lahayn kuwa loo adeegsado ujeedooyinka militari ee hubka. wasaaraddu waxay caddeysay in shaybaarada ku lugta lahaa barnaamijyada gargaarka caalamiga ah ay yihiin xarumo rayid ah oo ka shaqeeya caafimaadka bulshada kan xoolaha iyo cilmi-baarista sayniska iyadoo sidoo kale diiday jiritaanka sheegashooyinka ku saabsan waxa loogu yeero shaybaarada hubka biolojiga iyadoo ku tilmaamtay wararkaasina sheeko ay Ruushku muddo dheer faafinayeen oo marar badan si caalami ah loo beeniyay isla markaana dacaayado waxba kama jiraan ah. gunaanadkii wasaaraddu waxay si cad u sheegtay in Ukraine ay weli ka go'an tahay ilaalinta hufnaanta wada shaqaynta caalamiga ah ee dadaalada badqabka biolojiga ee caalamka iyadoo intaasi ku dartay in Kiev ay si buuxda u fulinayso waajibaadkeeda ku xusan heshiiska mamnuucidda hubka biolojiga iyo sunta ee sanadii 1972 la saxiixay iyadoo bishii Mayna guddiga baarista ee Ruushka uu ku andacooday in Washington ay maalgeliso horumarinta hubka biolojiga ee Ukraine sida ay werisay wakaaladda wararka Ruushka ee RIA Novosti. waa xagaaga waxay nagu soo wajahan warbixin ku saabsan Netanyahu oo ay hortaalo kala doorasho adag oo lagu wado u dhaxayso iyadoo Trumpna uu dood muran badan dhalisay oo ku saabsan mustaqbalka siyaasadeed ee ninkani uu furay. balse marka hore aynu ku hakano qadar xayeysiina. aynu markaan qoraansanaa muutalaabno sheekada ugu dambeysa ee barnaamijka caawa. mustaqbalka siyaasadeed ee ra'iisul wasaaraha Israa'iil ayaa qilqil ku jira iyadoo Netanyahu markii ugu horreysay uu ka fakarayo in siyaasadda uu ka fariisto waxaana dood ay abuurantay kadib hadalla kasoo yaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump balse wax la yaab ka dhaliya ayaa ah in uu dhinkani maadigoobayo boos kale oo muhiim ah oo uusan doonayn inuu ka dhex baxo siyaasadda. wargeyska Maarifa Israa'iil ka soo baxay waxa uu qoray maqaal uu ku sheegay in su'aasha taagan ay tahay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu isku dayay inuu helo waqti dheeraad ah oo ku sameeyo dib u eegis iyo sidoo kale xisaabtan daqiiqadihii ugu dambeeyay ah ilaa madaxweyne Donald Trump si cad uga hadlay arrintaasi. warsiduhu waxa uu sheegay in toddobaadyo badan ka hor uu xusay suurtagalnimada ah in Netanyahu uusan mar kale isku soo sharixin doorashada balse uu arkay fursad aad u fog oo daciif ah taasi. si kastaba Trump ayaa toddobaadkaasi waxa uu isku qasay kaararka kadib markii uu sheegay in uusan hubin in Netanyahu mar kale u tartami doono jagada ra'iisul wasaarenimo inkastoo uu xisbiga Likud-ka uu si degdeg ah u beeniyay wararkaasi jiritaankooda. maqaalka ayaa waxa uu xusay in kalsoonida lagu qabo haatan xisbigaasi ay aad u hooseyso maanta. qormadan ayaa lagu sheegay in Trump uu yahay qof si furan u sheega waxa maskaxdiisa ku soo dhaca
isagoo aan lahayn xadidaad ama qarsoodi badan taasi oo mararka qaar horseeda in xog aan la filaynin oo banaanka keeno. Intaasi waxaana uu ku daray in haddii Trump arrintan sheegay ay suurtagal tahay in xogtan uu ka maqlay la taliyayaashiisa amaba xitaa warbixino sirdoon oo Maraykan ah. Warshadaha ayaa tilmaamay in hay-adaha sirdoonka Maraykanka sida hay-adda amniga qaranka iyo tan sirdoonka dhexe ee Maraykanka ay si joogto ah u falanqeeyaan shakhsiyadda iyo xaaladda hogaamiyaasha dunida, gaar ahaan kuwa muhiimka u ah danaha Maraykanka. Qoraaga maqaalkan ayaa u daawacay warshadaha Maarif ee Israa'iil ka soo baxay intaasi ku daray in Netanyahu uu wajahayo xaalad sharci oo aad u adag, isagoona sheegay in dacwadaha ka dhanka ah ay keeni karaan ugu yaraan 2 ama 3 xukun oo suurtagal ah oo ay ku jiraan muddooyin xabsiyo oo dhab ah. Sida maqaalkan lagu sheegay, Netanyahu weli waxa uu ka fogaan karaa xabsi haddii uu aqbalo heshiis qirasho ah, isla markaana uu ka fadhiisto siyaasadda isagoo ka baxaya nolosha laylinta dowladda. Balse haddii Netanyahu mar kale uu isku soo sharaxo doorashada oo ku guuldareysto, awoodiisa uu ku geli karo heshiis sharci oo aad ayay u yaraan kartaa, isagoo baylaha u ah in xukunno maxkamadeed lagu rido. Gabagabadii, wargeyska ayaa xusay in haddii Netanyahu uu go'aansado in siyaasadda uu ka fadhiisto, uu isku dayi karo inuu helo heshiis sharci ah ama cafis gaar ah oo loo fidiyo, iyadoo hadafka uu noqon karo in mustaqbalka uu isku soo sharaxo xilka madaxweynaha Israa'iil marka uu dhammaado muddada xilka ee madaxweynaha hadda Isaac Herzog. Sidoo kale, Netanyahu waxaa suurtagal u ah inuu aqbali karo muddo kooban oo ka mamnuucida siyaasadda ah si uu ugu qalmo inuu u tartamo xilka madaxtinimada Israa'iil marka ay madaxweynaha haatan muddadiisu dhammaato. balse haddii uu diido dhammaan soo jeedimahaasi, waxa uu noqon doonaa mid fashilan oo haddii uu ku guuldareysto doorashada muddo xabsi ah lagu xukumi karo. waa hagaag daawadayaal, sheekadaasi ayaa caawa ugu dambeysay barnaamijkeena maxaa cusub. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Si aad u heshaan wararka, barnaamijyada iyo macluumaadka aynu halkan kusoo gudbino, haddii aad ku cusub tihiin baraheena bulshada ee kala duwan amaba aadan hore ugu xidhnaynina, waxay naga xasuusin inaad nagu soo biirtaan. Taliyo kulanti dambe, nabadgelyo.